anigaygan kula hadlaya ayaa mar damca inaan iskaga tago wadankan oo ku yiri celiya laakiin uu ka hor imanayaba negative carriya ku imanaya buu karanka bilaabay mana xanuunsanayo waa been lacagta uu karanka ku qaadanaya xaaraan bad hooyada siinaysa bismillahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdulqaadir Axmed Nuux ku nool wadanka Jarmalka gaar ahaan gobolka Northern Festival Mönchengladbach maanta waxaan doonayaa inaan idinla wadaago siyaabaha qofka markuu wadankan Jarmalka uu yimaado oo nooya Antragstellen uu sameeyo amba qaxoontinimada uu dalbado siyaabaha sharciga Jarmalka uu ku bixiyo sharciga weyn iyo sharciyada 3 sano iyo 1 sano ay yihiin qofka markuu isu soo dhiibo qaxoontinimadiisa loo tixgeliyo amba jawaabtu ay u timaado qofku markuu wadanka yimaado uu isu soo dhiibaya qofku wuxuu tagayaa markuu ugu horeyso wadanka uu yimaado uu isu soo dhiibo xariyaha qaxoontiga loogu talagalay ee la iska dhiibo ayuu faraha dhiganayaa qofku markuu isu soo dhiibo uu jawaabtiisa inta uu imanayso wuxuu joogayaa meeshii loogu talagalay waqtiga ay qaadanaysaana inkastoo la kiyo nasiib wax la yiraahdo uu jiro laakiin hadda waqtigan la joogo ilaa 3 bilood 4 bilood 6 bilood waqtiyadii hore mararka qaar ilaa 2 sano sanad iyo badh 3 sano way gaari jirtay laakiin hadda imka waqtigii uu isbedelay waxyaabo badan baa isfurfuray waxyaabo badan baa isbedelay wallahi waqtigii hore mise waqtigan imka la joogo waqtigii hore la joogay qofku wuxuu xaq u lahaa markasta xasan ay ka dhacaan inuu deganaasho uu codsado uu xareysto waa soo sharcigu dhigay laakiin hadda waqtigii waa isbedelay qofkii waa inuu shahaadada luqadda haysto wax BINS loo yaqaano waa inuu shaqeeyo systemyo badan oo lagu soo kordhiyay baa jira laakiin waqtiyadii hore sida anigoo kale markaan qaadanayay wax la weydiiyay ma jirin sharcigu markuu iga dhacay automatic buu igu yimid shuruudaha sharciga la iskaga baahan yahay waxa weeyaan 6 shuruudood weeyaan number 1 waxa weeyaan qofku inaanu wax dambiyo wadanka ka gelin number 2 waa inuu qofku luqadda u yaqaano number 3 imtixaan yaro test iyo Lieben Deutschland la yiraahdo oo gobolada Jarmalka iyo arrimo noocaas ku saabsan waa inaad taqaanto number 4 waa inuu qofku shaqeeyo uu isagu isku filan yahay istabaro bilooyinka ugu dambeeyay waa inuu isagu isku filaado uu gurina uu leeyahay number 5 inaanu qofku dambi wadanka ka gelin oo shuruudaha wadanka uu yaaliyo shuruucaha wadanka uu yaala uu buuxiyo number 6 waxa weeyaan shuruudaha wadanka uu yaala wadanka Jarmalka waa inuu qofku u hoggaansamo oo aanu marna aanu ka hor iman marka saasoo qofkii nasiibkiisuna uu ku wataa uu shuruudihiina uu buuxiyo saasoo ku heliya marka sharciga weyn wallahi qofka de marka negative loo soo tuuro waa inuu u tago lawyerkiisa uu wixii de negative lagu siiyo waa inuu de loo sharxo oo loo sheego de qofna negative la iskama siiyo waa ambiil qaata oo meelaha dadka laga caawiyo waa inuu meelaha tago weeyaan muhiimku waa inuu lawyerkiisa u tago qofku lawyerkiisa kala tashado Soomaalida Jarmalka joogto walaal lama celiyo qof isagu dalbaday in la celiyo mooyaane lama celiyo qof Jarmalka iyo qofka wax la celiyaa dambi sameeya sida criminalka drogska dilka marka de xadhigiisa dhamaado ayaa marka abshiibin wax la yiraahdo lagu sameeyo wadankiisa lagu celiyo laakiin Soomaalida wax walaal la celiyaa ma jirto qofka Soomaaliga ee la celinaya waa qof isagu proof la yimid Soomaalinimadiisa cadeeyay isagu iskii u dalbaday abshiibin inuu sameeyo wax qasabina ma jiraan waa qof weyn miirkiisa iyo maankiisu dhan anigaygan kula hadlaya ayaa mar damca inaan iskaga tago wadankan oo ku yiri celiya kabacdi waxa igu jawaabeen sharci deganaansho la yiraahdo lagu siiyay kuma celinayno adoo haddaad saad u noqonayso baasaboor haysta dhoofo naga tagaan ugu soo noqon laakiin waxaan anagu ku celinayna ma jirta bay igu yiraahdeen marka dadku yaani been isku sheegin dadku yaani been sheegin dad badan oo waxaan arkaa le Soomaali baa la celiyaa Jarmalku celiyaa Jarmalku waa laandheeraha Yurub weeyaan iyo
dad laaya kriminaalka ah dambiyada waaweyn gala sida draagiska iibiya amba dilka sameeya amba kubsiga sameeya dadkaas marka waqtigoodii ay u gaadho xabsi ciqaabeedka la marinayay kabacdi markaas qofkii la celiyay laakiin qof kale oo aan dhib geysan cidima celiso cidina ma tuurto dadkana beenta laga daayo runtana waxaad ugu timaadaan ku dhufo channel ugu kaalaya runta qadar bay nisan ilaahay aad baan idin salaamnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan waxaan deganahay magaalada Mushingalaad baaq 3 sano ugu dambeysay laakiin Jarmalka guud ahaan waxaan joogay 8 sano matalan salaam shirkad baa laga shaqeeyaa waxyaalaha igu yaabka badan leh shirkad baad ka wada shaqeynaysaa ma qof Soomaaliya laga eriyaa shaqada ku kala cararayo faraxsan baa kula nacalaa bigalka waan nacbaayo shaqada laga eriyo hadduu tusaale ahaan u soo qaato maanta ku dhaanay bal maanta ma haysta lacag i weydiina warnay waxaan nacsi shaqaysan maayo lacag bay weydiisay marka shaqadii laga eriyana suuday calafkiisa cunayay uu ku leeyahay wax xunaa la eriyo waxa laga yaabaa 2019 mar habeenimo aan shaqayn jiray iskuulka dhinac ka dhigan jiray magaal 8 saac soo shaqayn jiray 5 saac oo saacan jiray 4 saac iskuulka tagay jiray 4 waan qaybiyay qof weyn ku dhiirigeliyaad wuxuu ku leeyahay seed u tagtaa negative ma kari kartid war qofka tagay daadi ma hawa aniga waa xaqi u leedahay adigu tiraadi soo fiican baad haysaa ku soco laakiin uu ka hor imanaya negative carriya ku imanaya waxa ka koow xaasidnimada waxa keenay shayga aqli yaraanta leedahay hadduu qofku meel dheer ka fikiro naftiisa xadiis baa jira waxaad naftaada la jeceshay nafaha muslimka la jecelo hada xadiis ka qaadatid qofka walaalka ay farxad uu helo wala farxad uu guursado waa hadda maanta guur soo dhigtid oo Facebook u hambaliyo arbal nacas kale isagu mu guursada la waranaya mutalka ugu hambalinaya de maalintaadi ma oo maalintiisi maalintaadu waa samada cishada lagu soo daayo taxay wuxuu ku leeyahay inuu ku duceeyo reerka Ilaahay laakiin kana xayaaba laakiin ta ugu daran waxa weeyaan tan xaasidnimada guriga laga duminaya in tusaale ahaan laba qof oo jecel baa la arkaya shaydaamaha u soo kacayo waa lagu dirayaa qoyska in la dundumiya dhaxda loo xidhanaya laakiin mid baa laga badbaadaa ninka raggi markuu wax eegayo waa la igu yiri naagtada saasi waxa dee lama qaato waxaad qofka ku aragtid baa dee lagu xukumaa marka lagu soo dhax galana waa la iska celiyaa agada daciifta guriga laga duminaya ku qurbaha joogan xornaan dhalinyaradu aad ugu badan tahay waliba wixii 60 sano oo uu horeysay inaad maanta ku sii jirto waa ku doqonnimo adduunka waxa lagu keenay wax bedeshid adu muslim baa tahay muslimka iyo kristanka waxa wax bedela waa muslimka wuxuu koonaya maanta hadaad ku jira wadno san u soco Yurub baa la joogaa Yurub hada joogto diinta ka baxmiyaa lagu kitaabka quraanka lagu soo noqdan iyo sunnada rasuulka طريقة ذي توصلني مسلم كقصة dadka jaarka qaylada ka deesid shirkadaada aad waqtiga lagu tala tagtid beentaad ka ilaalisid dad baad shirkada iyo haysto inta ugu horto shaqaysanaya ishada la siiyo umba friisto ama abadiisa loo yaqaan shaqadaas caadi u helo bukraanka bilaabay man xanuunsanayo waa been lacagta karanka ku qaadanayay xaraamad hooyadaas inaysa lacag maanta xoogaad ku shaqaysanaysid adoo caafimaad qaba inaad hooyadaan xaraan siisid waa laga qurux badan yahay diiniyan ma qurux badna adoo xaraanta cunada hooyadaasi hada shaqaysadeen dad waxaagii waxa la raday xanuunsadid na soo wacba lagu noo soo sheeg iska joog waa loo gulay shuruudiga kuwa aad caadi xanuunsadid lacagtaada waa ku xalaal laakiin maanta markan karankii 7 cisho 8 cisho ku jiro waxa ma soo kordhin shirkadii qofkii Soomaaliga marka la arko qof Soomaali kale la siinay waxa ka baasan ku galaya dadkan la wad xoreysa adigina wad xoreysa هذا ما سمعها